cid kastoo Soomaali ah oo cabasho ka qabta doorashada iyo habkeeda waa soo dhaweynayaa hal qof kama weyna Soomaali oo dhan Soomaaliya shacabkeeda ayaa hal qof ra'yigiisa iyo rabitaankiisa Soomaaliya ayaa ka weyn xilli xaaladda siyaasadda ee doorashooyinka Soomaaliya ay marayso meel xasaasi ah ayaa haddana shirarkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo wakiilada caalamiga ah madaxda ama siyaasiyiinta Soomaalida loogu dhigay darsi ku salaysan inaysan dalkooda u shaqeynay ay ka shaqeystaan danjirayaasha wakiilada caalamiga ah gaar ahaan Mareykanka iyo UK ama Ingiriiska ayaa siyaasiyiinta Soomaalida ula hadlay hab ka baxsan diblomaasiyadda ama ugu yaraan xataa dal madax bannaan waxay u sheegeen qaar ka mid ah casharada ardayda UK loogu dhigo dugsiyada dhexe taasoo muujisay mar kale sida siyaasiga Soomaaliga uusan u garan karin danta guud laakiin uu si fiican xariif ugu yahay danihiisa khaaska ah aan u soo durugne wixii ka dambeeyay kulankii ku qabsoomay Muqdisho ee hogaamiyaasha Soomaalida oo kale ee sheeganaya hadal ay isugu jeediyeen wakiilada caalamiga hortooda dhexdoodana is haystaa waxaa soo baxay macluumaad cadeynaya go'aamo rasmi oo wakiilada caalamiga u direen dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida waana nuqul qoraaleed toos loogu socodsiiyay madaxda sare ila wareedyo sugan kana tirsan dhinacyo kala duwan ayaa noo xaqiijiyay afar qodob oo ay beesha caalamku u gudbiyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya musharaxiinta hanka madaxweyne uu ku jiro iyo dawlad goboleedyada madaxdooda kuwaas oo ku salaysan hanaanka doorashooyinka ee dalka ila wareedyadu waxay hoosta ka xariiqeen qoraalkan wadajir ay u go'aamiyeen in loo diro wakiilada UK Mareykanka iyo qaramada midoobay waxaana la wada gaarsiiyay si email ah siyaasiyiinta ay qusaysay waxayna go'aamadu kala ahaayeen kow wakiiladu waxay dalbadeen in guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed lagu sameeyo isbeddel degdeg ah xubnaha dawladda ama hay'adaha amniga u shaqeeyana laga saaro tani waa mid ka mid ah caqabadaha taagan ee isku hayeen musharaxiinta madaxweynenimada iyo dhinacyada saxiixay heshiiskii doorasho qodobka labaad beesha caalamku waxay doonaysaa in ciidamada dawladda ee gobolka Gado ay geysay loo daahiyo balse maamul ay magacowday Jubbaland ay tagaan degmooyinka gobolka Gado ciidan isku dhafa oo Jubbaland iyo federaalku sugaan amniga goobaha doorashada isla markaasina guddiga doorashada ee heer gobol ee Jubbaland ay maamusho doorashada Gado waa ubuucda khilaafka u badan halka uu ka taagan yahay hogaamiyaha maamulkiisu uu kala qaaran yahay Axmed Madoobana waxa uu ka sheegay maalin ka hor shirkii Muqdisho inay ka walaacsan yihiin ciidamada halka jooga oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ugu yeeray jamhad ra'iisul wasaaruhuna wakiilada hortooda ee caalamiga ka sheegay in ciidankaas ay yihiin ciidan qaran qodobka saddexaadi beesha caalamku waxay arrinta tabashada ee Soomaaliland u aragtaa in xukuumaddu xaq u leedahay inay magacowdo guddiga maadaama heshiiskii Sebtembar la gaaray uu qodobka 9aad dhigayo in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay leedahay magacaabidda xubnahan balse siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliland sida Cabdi Xaashiga aqalka sare wakiilada caalamigu waxay soo jeediyeen in loo ogolaado in xubnaha ay ku yeeshaan guddiga doorashada haddii Cabdi Xaashi uu ku adkaysto inuu isagu soo magacaabayo dhammaan xubnaha guddiga xafiisyada beesha caalamku waxay doonayaan in laga socdo maadaama loo arkayo inaysan xal diyaar u ahayn heshiiskii baarlamaanku ansixiyana la baalmaray qodobka afraad ee u dambeeya beesha caalamku waxay aaminsan yihiin sida xoguhu cadeynayaan in heshiiska aan dib loo furin balse la isqanciyo si loo gaaro doorasho wadajir ay ugu yihiin dhammaan dhinacyadu kana qayb galaan afarta qodob marka aad eegto waxaa muuqanaysa sida dhammaan dhinacyada Soomaalida ee isku haya arrimaha doorashooyinku ay yihiin kuwa qaadan doona amarro uga yimid wakiilada caalamiga laakiin hogaaminta Soomaalidu ay isqancin laadahay tani waxay mar kale muujinaysaa sida ay wakiilada caalamiga ugu muuqdaan kuwa ka lexla jecel badan hawlaha dalka Soomaaliya marka laga hadlayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee doonaysa inay xukumaan dalkan